Pau Cubarsí ayaa saftay kulankiisii ugu horreeyay xulka qaranka Spain maalintii Jimcihii, wuxuuna magaciisa ku qoray buugaagta taariikhda intii uu socday kulankii saaxiibtinimo ee La Roja ay la ciyaaraysay xulka qaranka Colombia. 17 sano jirkaan ayaa noqday difaacii ugu da'da yaraa abid u ciyaara xulka qaranka Spain markii uu garoonka soo galay ciyaarta Colombia oo ay ka harsan tahay 10 daqiiqo kadib markii oo lagu soo bedelay xiddiga difaaca ugu ciyaara xulka qaranka Spain iyo kooxda Al Nassr Emerick Laporte. Wuxuu jebiyey rikoorkii u yaalay difaacii hore kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos, kaasi oo saftay isaga oo jira 18 sano iyo 11 bilood. Cubarsí ayaa sidoo kale ah ciyaaryahaankii labaad ee ugu da'da yaraa ka soo muuqda xulka qaranka Spain, isaga oo ka dambeeya saaxiibkiis Lamine Yamal. Aad ayaan ugu haweynahay kulankaygii ugu horreeyay maadaama ay ra'yi tan iyo yaraanteydii, ayaa u sheegay warbaahinta dalka Spain. Mar waliba way adag tahay in la guuleysto, waxaana indhaawacaysa guuldarrada. Waxaan kaga mahadcelinayaa kalsoonida tababaraha, waxaan isku dayayaa inaan sida ugu fiican uga faa'iidaysto aniga oo wax walba bixinaya. Mar walba waxaan isku dayayaa inaan naftayda ahaado oo aan si degan u ciyaaro. Tababaraha xulka qaranka La Roja de la Fuente ayaa waxa uu sidoo kale fursad u siiyey xiddiga da'da yar ee Lamine Yamal. Maray ciyaartu maraysay 72 daqiiqo ayuu bedel ku yimid, balse wuu awoodi waayay inuu caawiyo kooxdiisa maadaama 1-0 ay ugu horkacaysay xulka Colombia. Xulka qaranka Spain ayaa haatan aadi doona garoonka Santiago Bernabeu ee cariga Spain, halkaasi oo kula ciyaari doono kulankoodii labaad ee saaxiibtinimo kaasi oo la ciyaari doono xulka qaranka Brazil.